dhawaan ayay ahayd markii ceelbiyood ku yaala degmada Arabsiya gobolka Gabiley ay ku geeriyoodeen Allah u naxariistee marxuum Faarax Cumar oo ka tagay hal xaas iyo 6 caruur ah oo aad u yar iyo sidoo kale marxuum Axmed Maxamed Xabiib hal xaas oo xaamila iyo waliba 2 caruur ah haddaba qoysaska iyo ubadka ay ka tageen Allah u naxariistee marxuumintaasi ku geeriyooday ceelbiyoodka ku dumay deegaanka Agamsaha oo markoodii hore ka ahaa qoysas tan yara isla markaasina ay nolol maalmoodkooga uga soo saari jireen xoogooda Allah u naxariistee marxuumintii ka dhintay qoysaskaasi ayaa waqtigani waxa soo waajahay duruufo nololeed oo aad u adag iyagoo waliba ay degan yihiin goob magaalada ka durugsan oo aanay inta badan ka helaynin cid gargaar u fidisa qoysaska ay ka tageen Allah u naxariistee marxuumintii ku geeriyooday ceelbiyoodkii ku dumay deegaanka Agamsaha oo aanu halkaasi ku buuqanay ayaanay noo suuro gelin inaanu wax weydiino xaasaskii ay ka tageen duruufo dareen naxdineed oo ku gadaaman awgeed balse waxaanu halkaasi kula kulanay isla markaasina warbixin naga siiyay noloshooda Maxamed Cabdi Sugulle oo ah odayga guud ee deegaanka Agamsaha waxaanu ummadda muslimiinta ugu baaqay in la soo caawiyo qoysaska iyo ubadkaasi ay ka tageen Allah u naxariistee labadii marxuun ee dhawaan ku geeriyooday ceelbiyoodkii ku dumay deegaanka Agamsaha ee degmada Arabsiya gobolka Gabiley dhacdii badhood ka dhacday halkan Agamsaha taasoo ahayd ceelkii bari lagu dumay oo ku dhinteen 2 nin labadiina intay mid ahaanba halkan aan joognaa qoyskiisii baan joognaa Allah u naxariistay intii kina samiriyay ma Allah ka siiyay wuxuu ahaa maxruum Maxamed Faarax Cumar waxa uu ka tagay 6 caruur 3 raga iyo 3 dumar markaa wax maxaa ku raahday qaangaadhina ma laha way aragtay cidii aragtay haday tahay dawladii haday deegaan tahayba halka laga soo faqay meedka cid kastaaba way aragtay halka waxa uu geeyay waxay ahayd baahi caruureed bay ahayd oo ay u tigaan halka ay u galeen ninku hadii uu haysto halka khatarta muu galeen marka caruurtii uu ka tagay wax weeyaan baahidii cishadii halkii uu galay maanta way taalaayo way joogtaa dheerida fuu saariye ilaahay mooyaane markaas cid maanta ka mas'uuliyina ma jirto maanta mas'uuliyadeedu innagayna saaranta haday tahay deegaanka ay haday tahay dawladda ay haday tahay dibad joog ay haday tahay qurqo joogaba innaga ayay ina saaran tahay mas'uuliyadoodu maadaama nin kastaba daartii uu qadarkii ku yimaado uu tagaya maanta isagu xaqiiqa aluutii cidda maanta joogtay caawimo u baahan waxa weeyaan caruurta yaryar ee sabiyaanta ee maanta aan xoogii halkii maanta loogu dhacayna aad ogeydeen cid aragtay waxaan leeyahay maanta wax badan baa arkay Agamsaha ambaarkii laga soo faqayay meedka laga soo faqayay markaa waxaan leeyahay walaalayaal ninkii maanta ay ku jirto naxariis amba aakhiro wax geysanay hala soo caawiyo kuwa maanta dibadda jooga caawimo u baahan naxariistee wuxuu ka tagay 2 caruur kii horraba inuu soo aragnay markaa waxa weeyaan qoyskii labaad weeyaan walaalaha muslimiinta iyo maxaa ku raahday waxaan leeyahay ha soo caawiyaan waa Sakariya Nuux Ibraahim warbaahinta SBC deegaanka Agamsaha ee gobolka Gabiley